نائب الرئيس مدحوين كوعينك وعكو يديها مستقبل كبراوي محا أو خودونتا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان سوماليين دل إيديودا وإذن سلامي سيجار أهان شركة جرائد أخبتي كاميرمان مستر أفي رون أهانتي مستقبل كمقالة برا ويهدو إلهي رالي كديقو أناقا وحان هاي دلنيرada maamulka Shabeelle Jubba State dad iyo dibadda waxaan rajeynaynaa anaga isku tiim baan nahay khaladaadka oo ka jiro waxaan rabnaa in wax badan inaan ka saxno waayo marka dib aad u eegtid magaaladeena caasimadda Baraawe sida wixii siyaad bare ka dambeeyay marka aad eegtid magaalooyinka kale Soomaaliya ka jiro horumarka ay talaabteen dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka dhinaca dhaqaalaha marka anaga waagi siyaad bare markuu uu wadanka ka baxay anaga meeshii aan joogno mid ka sii daran mid ka hoosan ayaan joognaa waayo run ahaantii anaga markaa dib aan anaga jaaliyadda daana diaspora run ahaantii magaaladeena Baraawe waa ka seexanay waayo Baraawe markaad fiirisid maanta anaga waxaan ahaynay dadkii oo halgamiyaashii oo SYL sida macnaa Baarbet shakhs qaawadiin dadkii hornimada ummadda Soomaaliya calanka maanta oo aan ku faaneyni dadkii halgamiyaashan ka soo jeedna maanta magaaladeena Baraawe waxaa banoqday meel baabacsan maanta sida aniga aan warka isoo gaaray isbitaalka Baraawe wax la yiraahdo daawo ma yaalo caafimaad la'aan ka jira waxbarasho la'aan muhiim maanta daad fiirisid koonfur galbeed markaan fiirino caasimada Baraawe laga dhigay Baraawe still runtii waxaan rabnaa hadduu ilaahay raali ka dhigo bisha December ka soo socdo isbedel oo la taawan karo oo horumar dad ka soo jeeda magaalada Baraawe dhalinyarada oo wax barteen xildhibaanayaasha hadda aan rajeynaya oo koonfur galbeed in wax badan oo Baraawe wax khaas ahaan iyo Shabeellaha Hoose inay wax ka bedelaan rajeynaya midda kale run ahaantii anaga hadaan nahay siyaasiyiinta ka soo jeeda Shabeellaha Hoose run ahaantii anaga ilaa hadda koonfur galbeed waa maamul anaga aan ku heshiinay awood qaybsi mise power sharing laakiin sida aad dhinac kale markaa fiirisid dastuurka koonfur galbeed wuxuu numberka lagu talagalay baarlamaanka 95 oo baarlamaan ayuuti su'aal aan ku weydiiyaa waa loo sameeyay way madaxweyne ku xogeen waa arintaas dhowr mara isweydiinay waa arin anaga marka walaalaheeni oo hoggaan Sharif Sakiin uu ahaa hadda lafta urgareen ayuu hadda hoggaan uu yahay arintaas dad fara badan ayaa shaki ayaa ka beeray sababtoo maxaa loo sameeyay waaye arin su'aal waaye waxaa loo nasoo baxay in oo arintaas lagu dan leeyahay Shabeellaha Hoose ayaa horumarkooda ayaa laga soo horjeedaa okay waxaan ku su'aalaha Kismaayo laba madaxweyne ku xogeen ah waa nin marixaan ah nin shiiqaal ah waay digil iyo mirifle ee u sameeyso waayeen madaxweyne ku xogeen what riski madaxweynahana gacan ku rimiso ahay madaxweynaha xalaasha oo heli lahay roobona xabsiga la geliyay 10 qofoodna waa lagu dilay beedhawa what is arintaas maxaa wax lagu qabo waay wallahi runtii horta asaga qofka waxaa waay Soomaalida waxay ku maadaa fulehantiisi ma moogi qof kasto wuu og yahay wuxuu asaga ninkan oo lafta gareen wuu og yahay kursiga uu ku fadhiyo dhiig oo yani dad fara badan lagu laayay ilaa hadda arintaas waxaa waay يعني wax oo yani macna ka soo qaad laheenin ayaa laga dhigay waay aniga arintaas waxaan sabab ahaan waxaan waxaan saaraya odayaasha mirifle ayaan sigaar ahaan ayaa ayaga mas'uuliyadda ayaga sababtoo ay tahay dhibaatadan magaaladooda ku dhacay
kan hataa maa shariif xasan markuu asaga oo yani kursiga uu fadhiisanayo saasuu dad fara badana la laayay haddana jidkaan haddana ninkan oo lafta dhuur galeen ee cabdicasiis asagana jidkaasuu maray waana ka xumay run ahaantii anaga kolley waxaan sugaynaa cadaalada dadweynaha waxaas kolley waa la xisaabtami doona hadduu ilaahay raali ka dhigo waxaana rajaynaynaa doorashooyinka hadda decemberka soo socdo doorashooyinka waxaan ka rajeynayaa numberka hadda lagu taga la galay 95 shariif xasan wuxuu ka dhigay 115 dad oo yani shabeelaha hoose deegaanka oo ayaga shaqo ku laheenin 25 xubnood ayaa laga siiyey oona deegaankaas shaqo ku laheenin laakiin mirifle walaalaheen ee nambaradooda ayaga lagu talagalay way heleen وانا كحماي ان شاء الله وحان رجينينا ان شاء الله وحبدن انه يعني مدحوينا انه بدلوا ايان رجينينا تو الهي اوكي مدحوينا كوغين waxa way cadaalad daradan waxa way dawladda oo farmaajo ka timid iyo khayre haddana waxa dhuusmareeb waxa ka socda dhibaatooyin badan see u aragtaa doorashada dadkaas inay u madax banaanaadaan ama ina sidii beedhabo dooro qoorta laga qabto biyaha dhul afka loo gelaayo ma dhici doonto ama doorasho waxa dhici doonto dimuqraadi والله هرت نكا هرت مدحوينا عبد الله محمد عبد الله فرماجو يو رئيس الوزراء خير وحان رجينينا